waxaan ku bilaabanaa warqad ka soo baxday qaramada midoobay ayaa wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya lagu weydiiyay inay sharaxaad ka bixiso xarigii Muqtaar Robow dadkii ku dhintay dibadbaxyadii magaalada Baydhabo iyo lugtii ay ku lahaayeen ciidamada Itoobiya ama kuwa AMISOM. warqadda ayaa waxaa lagu sheegay in saameyn markaasi ay ka dhalan karto arrintan marka loo eego xeerka xuquuqul insaanka qaramada midoobay halkaasi oo ay ku dhintay 15 qof oo shacab ah 2 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen intii ay socdeen banaanbaxyadaasi Baydhabo. sharciyada xirida Muqtaar Robow ayaa su'aal laga keenaya haddii taageero markaasi laga dalbaday ciidamada Itoobiya ama AMISOM xarigan la xiriirta kuwa la xiriiray dibadbaxyada iyo xeerinta dhimashada iyo dhaawaca shacabkii inta ay socdeen dibadbaxyada iyo ciidamada ka qayb galay cidda amarka guud bixisay marka la falcelinayay iyo waliba amrida in xakamaynta ciidamada booliska Soomaaliya ee la geeyay Baydhabo ay ahayd amar noocee ah ayaase la siiyay ciidamada ee la xiriiray isticmaalka awoodda looga jawaabayo dibadbaxyada magaalada Baydhabo. dhanka dawladda Soomaaliya oo aanu isku daynay inaan wax ka weydiino warqadan qaramada midoobay waxay sheegeen in ay qoraal kaga jawaabi doonaan. haddaba stuudiyaha waxaa igula sugan Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo arrimaha amniga ee gobolka ka faalooda. Cabdisalaan, marka ugu horeysa warqadan qaramada midoobay maxaan ku fasiri karnaa? farxaan warqadan waxa ka muuqato canaan, waxa ka muuqato eed sheegasho, waxa ka muuqato waxay ku xusayaan sharciga dawladda Soomaaliya ay ka gudubto, waxay ku xusayaan wada shaqayntii dawladda Soomaaliya qaramada midoobay iyo hay'adahan international community-ga la yiraahdo ay ku heshiiyeen oo AMISOM ka mid tahay in lagu wada shaqeeyo iyo in waxa soo dhan lagu xadgudbay. waxa kale oo meesha ka muuqato wada hadal inuu hore u jiray laga sida la dhadhansan karo. dawladda warqad aad miisaan culus la waayo xagga siyaasadda iyo amniga iyo sharciga xuquuqda iyo maartay insaankaba saameyn weyn ku yeelan doonto. marka waxa ka muuqata wada hadallo hoose inay soo jireen oo dabcan geed fadhi inuu jiray intaan warqadan la qorin ka hor laakiin la isku afgaran waayay laana warqadda waxa ka muuqata yani canaan shucuura ka muuqata. marka cadaadis wax oo dawladda lagu saaray ma u muuqata markaad aqrisay sadarada warqadda dawladda Soomaaliya waxaad u malaysaa yani markaan fiirino dawladnimada Soomaaliya waa 50-50 la dhihi karaa international community intay ku leeyihiin iyo intay Soomaaliya leedahay. marka international community-ga qaybta ay ku lahaayeen waxay aad sheeganayaan in takrifalkan u dhacayo waxaan oo dhan u dhacayaan ayaga oo lagala tashan wixii ay ahaydeen lagala tashto. marka Soomaaliya waxaan u malaynaa waxyaabo badan baa la siman laakiin inay gooyaan dhaqaalihii ay sii jireen booliiska Baydhabo iyo in ay dhahaan waxaan sameyn doonaa maaragtay wali waqti gaaban u qabtaan dawladda Soomaaliya kaliya ma aha waxa ay la hadlayaan AMISOM ay u qoreen safaaradda Itoobiya la hadlayaan waxa soo dhamad malaysa taaba rabay wax ka weydiiyo in beesha caalamka marka la yiraahdo Soomaaliya hal dhinac bay u tahay oo midowga Yurub hawlgalkiisii ay saacidayeen midowga Afrika oo ciidamadii keenay iyaga laakiin AU laguma xusin marka ma kala cad Soomaaliya warqadda AU kuma saxiixna laakiin waxa ma ysaad warqadda waxay ka hadlaysaa doonariska kaalmo bixiyaasha marka AU kaalmo bixiyaal ma ah waa kuwa kaalmada la siiyay kamid ah oo dadka Soomaaliya saaciday kamid ah. marka warqadda canaanta ku qoran waa qaramada midoobay ee dalalladii la hoos joogay marka international community-ga la yiraahdo ama hay'adaha maartay Soomaaliya la shaqeey ugu waaweyn iyo wadamada ugu muhiimsanaay ee dhaqaalaha dhiib jiray sida European-ka iyo dawladda Ingiriiska iyo Jarmalka si qaas ah loo xusay. marka warqaddu waxay ka hadlaysaa qaramada midoobay daladeedii la wato wadamadii kaalmada dhiibi jiray iyo wixii lagu wada shaqeey jiray iyo xadgudubkii dhacay iyo cidii xadgudubtay oo ah dawladda Soomaaliya oo ciidamada amniga iyo booliiska iyo especially Baydhabo ciidamadii AMISOM Itoobiya oo AMISOM kamida AMISOM maxaad hawshan u gashan waxa soo dhan baa laga hadlaya oo isleedahay runtii warqaddu waa miisaan weyn culays ay leedahay. marka haddii waxaan ay sheegayaan oo hadda qaarkood bay leeyihiin ciidamadii booliiska waa ka joojin lacagti maxaa ka dhalan kara marka xagga amniga marka la eego culays weyn dawladda Soomaaliya soo food saari doona. dawladda Soomaaliya waxay la daala dhacaysay awal inay awood u yeelato inay mushaarka dhiibto waxay la daala dhacaysay inay kabto stationada booliisyada iyo dhismooyinka. warqadda waxa ka muuqata waxa ay qabtaan ay ku amal sheegayaan qaramada midoobay iyo hay'adahan maartay wadamadan hadda saxiixayo waxay u qabtaan especially South West ama dawlad goboleedka Baydhabo waxay u qabtaan. marka hadii taas la joojiyo waxa imaanaya inuu askariga shaqadii qaban waayo waxa imaanaya in xafiisyada laga shaqeyn waayo waxa imaanaya malastii kala marka dhinaca hadii laga eego al-shabaabkii la dagaalamay bay fursad siinayaan hadii ay ka joojinayaan ciidankii la dagaalamay. dawladda Soomaaliya waxaad u malaysaa in geedi socod dheer ay soo martay oo maalba meel ay soo istaagtay. marka waxaad u malaysaa hubkii ugu dambeeyay isticmaali kareen oo ay dhahayeen intaan un baan awoodna haddaadna nala shaqeynne waan jaraynaa. si kooban marka waxay yiraahdeen qoraal baan uga hadli doonaa laakiin dawladda Soomaaliya hadda marka
maxaa laga filan karaa jawaabta ay bixin karto maxay noqon kartaa Soomaalidu inta badan waxay dhahdaa wax la yiraahdo adduunka asaga dan naga leh dan kamali haddii taasuna waa qarqadhac iyo meel iska tuur haddii taas ku dhaqaaqdo dabcan tilaabooyin kale ka sugaynaa warqadan hadday garato miisaanka iyo culayska warqadan uu leedahayna waxaan aaminsanahay inay dawladda Soomaaliya fursad haysatay uga jawaabto aad iyo aad baad mahadsan tahay Cabdisalaam Guuleed oo ka faalooda arrimaha ammaanka ee gobolka ku mahadsan tahay waqtigaaga